الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله إلهي بأمه الله سبحانه وتعالى إنه كل ميالكا أن ما أنت أجوبنه إن أن مركا وحويان يدو أي مركا كسوق إبقلين ماريه وزير كهانة قدوميه دقمد على حيد دمان سلطان عثمان بعالي iyo dhammaan markaa waxa weeyaan oqaashi iyo xagaradkii haweenkii degmada Cadaxeed marka hore waan iska ducaysanayna ilaahay baan barnaa subxaanahu wa ta'aala ilaahay inoo fududeeyo hawsha aan galay weyn marka labaad insha Allah ta'aala waxa ku soo dhaweyn doonaa mas'uuliyiinta kala duwan ilaahay waxaan barnaa subxaanahu wa ta'aala ilaahay inoo fududeeyo shaqada weyn aan galay ilaahay baa markaa waxa weeyaan awoodiisa iyo tabartiisa wax u qabtaa ilaahay waxaan baryaynaa markaa waxa weeyaan ku camalkaas camal wanaagsan oo amal ikhlaas Allah inooga dhigo ilaahay markaa waxa weeyaan degmada yarkaas Allah ka dhigo dawladda iyo maamulka iyo dadka Allah inoo barakeeyo mas'uuliyiinta iyo dadka madaxweynaha ilaahay loo hagaajiyo ku xiriiriya Jabuuti ilaa iyo Hargeysa oo maraya degmada Cadaxeed bartankeega meesha la yiraahdo caana dhawe alxamdulillah ilaahay baa mahadle markii ay salaamadu dhacday kulli waxa go'ay wadooyinka iyo jidadkan deena waxa loo soo diray gaadiid wax ka qabta shaqo fiican waa la qabtay shaqo fiican kulli waa la qabtay waxaana daway hadhay yihiinoo Soomaalida tiraahdo dambi looma faano dhulku kulli aan dib badan buu leeyahay inta bilaadku qaban kariyo waa la qabtay deena maanta hubin baa lagu sameeyay waxa noo yimiday maareeyihii baa halkan yimiday suudaanadii qayb kamid ah ayaa timiday siyaasiyiin kala timiday oqaal badan baa timiday waxa la jeegareeyaa amba la eegayaa bal faysku horeeyay ee meeshan ka fulay inta uu marayo kulli waan aragnay shaqooyin badan oo la qabtay shaqooyin badan oo hadana waan aragnay inta ilaahay nagu simo qaban karnaa kulli waan qabanaynaa jidkii baana hadda u taaganahay oo waad aragtaan inaan taaganahay bartankii meeshan meel waxay ahayd markii hore dib badan leh hawl badan lagu haysa dibashooyin badan ka dhacayeen kulkii horeba deena salaamiga dhacay baa sideedaba baabiye oo masaxay waa isku furan yahay jidkii maanta alxamdulillah waa mariya gaadiidku shaqadeediina bartan baa loogu jiraa fayskoona intaasoo maraya wixii dambe kullayeen ilaahay baan ka sugaynaa intii taarkaygana waanu ku daraynaa intii dawladda iyo hay'ado wixii halkaa wax ka geystayna waanu ammaanaynaa kullayeen waxaan leenahay waad mahadsantihiin awooddoodii taarkoodana waa wadaan الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد كل أنا هذا البدن أوران معايو waxaan doonayay halkan aan maadaama dadkii deegaankan hayna uga mahadnaqo oo horeyn maareeyaha wakaalada wadooyinka marti sharafta salaadiinta haweenka aqoon-yahanada wasiirkii hore wasiirka xogeenkii hore faafinta oo halkan maanta nala jooga runtii wax weyn waa la qabtay oo markaan ka hadlo wadada mahadnaqa waxa guud ahaan dawladda Soomaaliland baa wax weyn noo qabatay tsunami wixii dhacay waxa laga jawaabay in daleno saddex macadaad ama caafiyo baneeyo dhulkii xidhmay halka wadadana wadada kaliya halbowlaha waa Soomaaliland Djibouti iyo Soomaaliland baa gaadiidleedu dib badan bay ku qabaan inkastoo la joogo gudoomiyihii maxay iskaashatada gaadiidka oo isagoo warkiisa kulli qoon doona kelmadiisa dhibta ay ku qabeen waxa kamid ah baabuur halkan baabuurta culus baa marta way ku qallimaan rafaad badan bay la kulmaan roobka wuxuu daan ugu wada go'ay runtii ayfa inta kan badan waa loo baahnaa laakiin itaalka kolba aan hayno ba aad ugu naasay dawladdu hoggaamiye Musabbixi Cabdiraxmaan Sayliwi maareeyuna aad iyo aad buu mahadsan yahay dadaalka badan ee halkan uu geliyay dadkana waxaan ka codsanaynaa daawanaya ama kuwa deegaankaba inay gacantooda ka geystaan waayo hawshani macadaadka oo kaliya wax kama qaban karaan waxay u baahan yihiin dad la socda oo voluntary ugu shaqeeya hay'adka kale ee aan dawladda ahayna iyaga laftooda waxaan ka codsanaynaa inay iyaga qayb bay kulay ku leeyihiin qaybtooda ka qaataan iskaashatada tawakkal waxaan ka gudoomiyahay wadadan iyo wadada Boorama imika
labaatan sanadood dowladda Soomaaliya jirto majarfaduman ku wadna weliga yaalay wax عارف نو soo diray ma naarag uu ku maatay laakiin maarayahani cagafii noo soo diray wadada inteedii weyn la hagaajiyay intii kalena way arsantahay waxaan dawladda ka codsanaynaa in tan iyo tabooramaga naloo hagaajiyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan halkan wadan taaganahay dalcado badan baa taaganahay degmada Alxaar baa la yiraahdaa waad arkaysaa inuu noo soo diray maarayuhu ina dawladda Soomaaliya soo dirtay ina maaragtay roobabkii iyo barafyadii meesha ka dhacay wadadina ay soo xireen anigu waxaan halkan deganahay 280 kiiba halkan deganahay maalikii cadaf maarag maalin walba halkan ka dalcada u badan ee la burburiyay ee maanta aad ay uga shaqaysay cadafin uga shaqeeyeen ee ku faraxnay ee kii xeerta ka yimaanay cadayay saylaana laga soo hadlayo ee la leeyahay ma cadafiyaa ku jira ma alla ku goog waa cadafiyaa ku jira ee aad looga shaqeeyay meeshii ugu meed badnayd ee ugu dhaawac badnayd iyay halkan aad loo burburiyay waxa soo maray maalintii xisbiga kulmiye dooranayay baabuur maalintii la ku dhintay oo baabuurkii bagaashka la hubay ilaahay waxaan ka baryaynaa oo nu ducaynaynaa dawladda Soomaaliya waanu mahadnaqaynaa waanu ooyaynaa waanu maaragtay ku faraxnay maanta maalintii arkaa yimaadeen ee cadafyada yimaadeen la cid maaragtay annaguna maaragtay dhuntii kale ahayd ee Soomaaliya ka soo galaysay maaragtay sayr iyo la yacdiyo Djibouti laga soo wareegay 500 oo baabuur baa halkaas taba joogsanay damaar baa cuntada ku soo qaaday baabuur baa rogmaday qaar baabuurtii rogmatay oo meedkii lagu guraa lagu qaar buundadii soo ku jifsaday oo meel laga carro agabar laga dabay intii meedkii soo ku jifay maaragtay laga dalacayo agabar laga soo guray baabuurta soo gurnaysay yaa lama yara hayraamina dhagax iyo buundadii saas ku daba saaray waxa weeye meesha waa meeshii maaragtay dadka dhamaysay meeshii maaragtay naftu ilaahay baa nadiga waa baqad ilaahay nadiga ama ku noolayn halka iyo Alxaar iyo lafrinta la yacdo dawladda lama la digay ma herada waxa weeye gaadiidkaas la ilaashanaya waa dhuntii kale hadalkay warayay maaragtay maanta maarayaha noo soo diray waanu mahad celinaynaa dawladda Soomaaliya waanu mahad celinaynaa odayaashii aqoonsha noo soo diray waanu mahad celinaynaa annaguna aqoonshadeedii iyo maayarkayagii iyo degmadayadii iyo odayaashayadii iyo suldaanadayadii iyo aqalladayadii dhan iyo mar walba dawladda jooga oo noo yimid oo nala soo hadlay oo maanta taagan oo kuna faraxsanahay ina inta harsan noo dhameeyaan oo inta maaragtay noo dhamaystiraan oo wixii xal ahaan ku celino oo maaragtay la dhowr ruux oo sodoneen ma qorno waas ku celino waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waanu mahad celinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad ilaahi baa mahad wax loo mahadnaqa waa ilaahay inta kadib cidii hawshan wax ka qabatay ka geysatay waanu mahadnaqaynaa dawladda waa mahadnaqaynaa madaxda waa mahadnaqaynaa maarayaha waa mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle kulli hawsha uu soo laga qabtay wax uu soo wahday marka hadal runtiisa laga sheego ha haatay dad bana inta maanta laga qabtay aan ugu mahadnaqayaan inta harsanna ilaahay idankiisa haddaan anagu nahay degmada Alxaar wixii kartida hore ugu qaban jiray maanta waanu ka qabaynaa waa ku basay laga kartayna waxa weeye wixii kartidayna in ay naga caawiso wadadaas oo in kale kale iyagana waa dawladdan ugu mahadnaqaynaa inay naga caawiso Allah mahadle hawsha uu sii barin maayo ilaahay baa ku jirnaa waxa weeye inta badan hadalka waa laga soo hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle maanta halkan horta isku keenay marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yihiin Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici iyo maanta oo halkan aanu joogno dariiqii Alxaar waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maareeyaha wadooyinka Soomaaliland Ismaan oo markii ay duufaantu dhacday ee dhulka markaanu tagnay aanu warkii siinay markiiba isaguna adkeysan waayo toos u tagay soo indheeyay wixii aanu soo aragnayna nala soo arkay dabadeedna go'aan ku qaatay isagoo ka mas'uula xukuumadda Soomaaliland inuu dariiqyada dadka ay ku dhacday duufaantu gaadiidkii mucaawimooyinka u waday halkay mari lahaayeen inuu u furo dabadeedna ay ku wada tashadeen bulshadii Alxaar iyo hay'adii wadooyinka inay isgarab galaan oo wixii ay qaban karayaan halka ay ka qabtaan qacanta weyn ay ka geysatay hay'adda wadooyinku
markaa maanta halka waxaan u joognaa inaanu soo indhaindhayno dariiqii kaas oo wax fara badanna laga qabtay wax badanna ay u dhiman yihiin bulshada Soomaaliland waxaan ugu yeedhaynaa inay ka qayb qaataan oo wax alla wax deegaan kasta oo socdaan cagafyada iyo dariiqa la hagaajinaya inay qaybtooda iyaguna ka hagaajiyaan oo contribution kooda ku darsadaan qacmo wada jirba wax ku qabtaan ayna la garab galaan sidii halka dariiqada loogu furi lahaa maantana waa maalin aad noogu farxad leh sida wanaagsan uu maareeyuhu noogala qayb galay dariiqa san ugu furi lahayn dadka bulshada halkan ku xanibnayd taas oo wixii awoodiisa iyo agab iyo muxuu ahaa gaadiid iyo shaqaale iyo injineer ahaba uu soo diray marka maanta aad baan uga mahad celinaynaa waana ku mahadsantiin hawshan halka baynu ka soo wadi doonaa والسلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتي وحن آدي ومهد إلينا يا الرحمن كبنات ميشن سكوك كاني يا أرتي إلهي بان يا مهد لقينا مدى الله وحا مهد آدي قيمة له وحال لنا أنسين الناس مناسلهم قف كستوى ميشن إلا الدجيوي إلى خير السيئة أصبان شيخ عبدي waxa uu ka qabtay halka hawshaas aniguna waan ogeyn ilaahayna waa og yahay waqti khayr Allah siiyo qofka walaalka dad u golaan weydo inta uu qabtay iyo waxa uu wado ya adigu ma aragtay kaalmo malihid marka ilaahay waqti khayr ka siiyo waxa kale ma hadda leh madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka ka aqbalay dalabkii uu la tagay ee hawsha lagu qaban lahaa wada geeyada dilawaatada meesha ka jirta ninka ka soo waramay waxa kale oo ku dari lahaa umada joogta meesha doonaan baa joogaan ee reer ma aragtay awdal intii halkan u dhalatay inta meel kale u dhalatay aniga ku hadlayo magaca salaadiinta oo maanta kaliya mas'uula in aad wixii la qaban lahaydeen shacabka beesha degan kuwii dibadda jooga dariiq islaam mafruudo dariiq fudud maaha hawl u baahan yahay hawlaha u baahan yahay hadii laga qaban waayo maareeyaha iyo mas'uuliyadda meesha uu ka hayo kaliya wax ma qaban karo dawladuna culayska inta la kaliya wax ma qaban karto waxa loo baahan yahay halkan ugu gudbiyaa maartay dhawaaqayga walaalaha ay dhibayso ee jecel inay maartay dalkooda dadkooda wax qabtaan inay ka qayb galaan oo gacan ka geystaan aad iyo aad u qiimo leh iyana uu ku boorinayaa waxa kale ku boorinayaa alxayd inta halka joogtay fadhida waana mas'uuliyadda qaadaan dimaanta inka gacanta ku haya waana ilaalisaan waan baalahaas ay noqdaan kuwa maartay manaafacaad keena wixii annaka naga soo haween diyaar baan u nahay wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلطانك أديلا كوريا اسبان دعاله الشيخ ذا وزير كي هراء وزير حيان كي هراء وزارة ورفافنتها قدومية دماغ على حيد مروضة بالثالثة فوسية دائرة قرب كهوين كما الثالثة دوغيدة كلا صحافة شغالها فرسمة أوش كوشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال فرحات بيتاي إلهي ارتوار ومهما يا أولا فرحنا ما انتويتاي إن ما عدنا أون كربير كل ما عدنا أون أقول قال حالة وهي قبصومة إيوها هاري يسين وجان وجعل وجهي هره marka hore waxaan markaan dib inuu yar noqdo waxaan soo dirnay injineer qiimeeya afadi waxa kale oo xusid mudan waxaan ugu hormoodaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Musabiix Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka wada ugeedeen inay helicopter soo qaateen in xaaladda la socdaan hay'adaha dawladda way ku amreen anaga waxay mas'uuliyad qaran baan u hayna adeegyada baan waan fulinayna nin walba sida uu matqana mas'uuliyadda u qaato u fahmo ayuu xufuliyaa aniga kulli dareen gaar ah ayaan ka qaatay waxaan jecelahay horena sidaas sheegayseen wadooyinkan dhibaato badan ayaa ka tagay waxaan wajigii hore qabanay inaan soo dirro cagta fudud oo ay soo maraan ilaa Baki ilaa Jiida tanna waa tii aan soo bilownay waxa weeye wadooyinkaasi waxay u baahan yihiin had laga soo bilaabo Boorama ay Baki ku soo dhaadhacdo ay soo gaadho Alaxayd iyo hadii la ku rooyahay wadadan isku xidhaysa Djibouti iyo Halbowle ah ee Alaxayd xudunteedu tuu soo maraso waxa kale jira duufaanta waxa weeye gobolka ay ku meeyeen waqooyiga waxa saameysay gobolka Maroodijeex waxa kale saameysay Gabiley wadooyinka waxa weeye ilaa Gabiley inaan u furo ilaa iyo Hargeysa inaan u furo adeeg ku yahay inaan isku xidhka Boorama iyo xiriirino matqana Alaxayd oo wadada furno nasiibana waxaan doonayaa inuu wargeliyo waxaan hadda bilaabanaa wajigii labaad saan sabtida waxa Boorama ka soo dhaadhacaya cagaf kale oo aan kareeno buldosara oo haddana muuqaalka ka soo bixi doonta maanta iyadoo aan Hargeysa ka qaadanay muddo aan raadinayna cagaf ka shaqeyso oo buldosara
agartaasi waxay soo socon doontaa biidnillahi tacaala ilaa cali xaydh halkana biidnillahi waxaan rajaynaynaa annagu kaalmo waanu u baahannahay musaacado waanu u baahannahay kamay soo qaybgelin hay-adaha caalamiga macnaha haddii ay ka soo qayb galeen qaybo badan bay iyay saamaysay duufaantu oo nolosha ka mid ah noloshana waxa weeye aasaaskii isku xirka uu ahaa kamay soo qaybgelin wadooyinka waan ku buurinayaa waan u soo jeedinayaa inay ka soo qayb qaataan dadweynaha waxaan gaar uga husayaa waxa weeye waddada waa la samaynayaa hadday jeer biyaha ayaa ka daba yimaada inta tamartiini waxa weeyaan inaad biyo dhaafista aad ka shaqaysaan oo darineejada waddada quruxdeeduna waa road furniture baa la yidhaha taa aad baan naga codsananaa soo dhaweynta kale ee aad maaragtay samayseen iyo haddii ala ku rumeeyey fahamka aad fahamteen oo maanta aanu dee ma garanaysaa taladeeda iyo waxqabadkeygana aad iyo aad baan mataqaanaa inagu mahadnaqayaa sidaa dareenku inuu yahayna aad baan inagu mahadnaqayaa odayada u xaydanaya siyaasiyiinta dee kasoo jeeda deegaanka ee nala xidhiidhay ee mataqaanaa ku daba jirana mas-uuliyad gaarina way ka saaranta way fulinayaan ilaa iyagana jasaa ha ka siiyo waxaananu ka baryanaa dadweynaha guud ahaanba sidii uu sheegay suldaanku dadka qurba jooga ee dibadda ku maqan iyo kuwa maaragtay qolqol jooga ahba way ka qayb qaadan karaan laakiin qaybtan yaan loo arkin mataqaanaa qayb sahlan waa muhiim noloshana waxa weeyaan had iyo jeer wax beys waa wadooyinka waxaanu hadda wadnaa barnaamij baa soo bandhigi doonaa la yidhaahdo barnaamijka waxaa la yidhahdaa mataqaanaa better development of Somaliland is a better roads horumarka Somaliland waa wadooyin fiican ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wadooyinku qaar kuwa laamida ah qaarna waa kuwa mataqaanaa la yidhaahdo earthka si joogta ah baan haddii la yidhaahdo meela xiriiraya halkan waxaan jecela inaan doqontii naqada ugu dambaysa ka tagtay noqoni ay hawshani socoto ilaahayna waa la kaashananaa way soconaysaa wixii aan ku kordhinayna waan ku kordhinaynaa madaxda qarankuna way og tahay waana nagu garab taagan tahay waananu ka codsanay taas horta waa taa horta kumarta uguma daayo weeyaane anigu waxaan ahaa wasiirkii maalintii biyaha waqtigii daarayaale waxaan anigu ogahay xaalado badan oo dhaqaale oo waddanka uu halkan ku jiro xitaa hay-adan maanta caalamiga oo amanta kamariya caadima doonayna keeno wadooyinkana waan u banaynaynaa waa sidaa aanu imid anigu waxaan doonayaa wejiyo kale inaan ku imaado horumarka dalka dadka waxay u baahan yihiin khayraadka loo soo saaro khayraadku waddankeena waan ku dhisan karnaa waxbaynu qabsan karnaa ninkii allaarhantii macda la odhan jiray allaarhan guriguu tiri nin waqtigaa lagaba aytami jirin cimrigeena yaanaan ku limin cayda suuqyada waqtiyadaa uu gabigaa tiriyey ciidmina isma cayi jirin gacmihiisa wada caawiyaan shayna ku cuslayn haynu iskaashanno haynu iskaalmaysanno ilaahayna aan barino inuu wax nala qabto assalaamu calaykum